baarleex wuxuu si weyn u soo caanbaxay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuu kaalin weyn ku lahaa gubaabinta ciidamadii xoogga dalka isagoo dadku ku barteen dhaantooyin badan oo waqtigaas uu curiyay dhaantooyinka caanbaxay ee waqtigaas abwaan baarleex curiyay waxaa ka mid ahaa dhaantadii la baxday dhiigga xabashida gaalku doqonsana herar iyo hawaas goday iyo qaar kale luuq aysan cidila wadaagin erayo xigmadaysan iyo isku filaansho dhanka jiibta ah ayuu caan ku ahaa baarleex sida ka muuqata dhaantooyinkiisa xilligii dagaalkii Itoobiya aan ku bilaabo dhaantada dhiigga xabashida dhuleelka danoon iyo duurka dawoodooda weyn iyo meel fog ma dhoofanka waas dhinacyadeysa shabeelle iyo dhuuxa qalaafa dhudub meel la yidhooda dhinaceesa gallaadhe dhulkii oo nulahayn bay dhafoglayda axmaara dheel ku qaadahayaan oo xaley dhoomashadeeyo dhabbaay delaya oo dhowrqadow qorega iyo dhiglay baan wadanaa dhiidhina waan ku jiray allahayow la dhameeya dhafoglayda axmaaro ana dhowrna deelay dhowrna dhowo dhiigga xabashida dhegtoogo macaan dhiigga xabashida dhegtoogo herar iyo hawaas jabado halgamaysiyo horsoodkeeda wanaagsan iyo jabcado halgamaysiyo horseedkeeda wanaagsan iyo halyeygaad garanaysiiyo cabdallaan ka hadhaynin ee cabdallowna horseedo cabdallowna hanuun iyo hogaanaad wanaagsan iyo halyeygaanu jaalayno hubka maantana siiyo inadiisa qirlaasiyo aan shabeella ku heesno godayaan hamtinaayo hanuunuflayda axmaaro annagoo halgamaynay hobiyow qoreeya hawsaroonu kullayno Allah yo leerareeyo hawaas Allah yo leerareeyo hawaas Allah yo leerareeyo hawaas Allah yo leerareeyo hawaas gaalku doqonsana indhoway daawi manso oy diday dooda wagleetiyo wayska daayay dawaylo durgaa dhowriyo laagiyo dibay ceelka danood iyo dalkii aynu lahayn iyo debirkiisa shilaabo iyo dekadiisa hawaasiyo oo dooralaya ee doole kogo dhayay gaalku doqonsana gaalku doqonsana doole kogo dhayay gaalku doqonsana gaalku doqonsana doole kogo dhayay gaalku doqonsana goday buray goobta nagayde ay buray goobta nagaydiyo gindhidh goolda afkeed iyo gooradaad garanayso mindigistiyoo dabagaadan mawgoyni karaa goday ceelka godeey gindhidh meel la yidhaahdiyo goobee haramaay iyo galladii jigjiga inta uu gurayaaday isagoo gansamaayo girinuufka ridaayay waa inaan galab weerar iyo gaas intaan bixinaa go'ayay laga siiyo gambilayda axmaaro hadaalaad garataan iyo warmaydeen gambeya gadaal looxa ku taalayna adeeray galbeed iyo goobbaa layga haya war ma goolada looga taagay goday ma garoonkeday waaligoordean ma garoonkeday waaligoordean waaligoordean ma garoonkeday waaligoordean ma garoonkeday waaligoor inkastoo abwaan baarleex caan ku ahaa dhaantada haddana god kasta oo maansa leedahay waa u sahlanayd inuu wax ka curiyo gabayga saarka iyo maansooyinka ayuu wax ka tirin jiray kani waa mid ka mid a gabayada abwaan baarleex tiriyey galiidyada ayaysiyo qalbigu suu gubanayo geedigoyo gaajardoo guga la gaadhsiiyo amaan xornima gaadhno libinku geeraaro godayda su'aaleeninaan gacal wadaagnayo in galbeed faroodiyo leeli dunida gaadhsiiya u guntaday dagaal gobaanimaad geli karaysaane galaadiyo wardheeriyo intii godanka imeeya ama gaariska loo tagiyo gacanka Nairobi gari iyo goday iyo walaaltan iyo galweyne gawya aqlafiyo dhammaan gedi shabeello dhan indhiriyo ila goboy goha ololeyso gosolkii bulaaliyo algugel
geelana gu joogo warbeerdaynimaadu gaasanayd goobtii haramayo gaar ahaan jigjiga meesha ay gaxdu naga taalo gobolada awaasiyo intuu guray ku soo meeray gayiga lahayn buu axmar gibirka qadaye shalay galabku uu gowracay baan gacal wadaagnaaye maxaan gabayga soo gaadiya geeri baanahaye baarle xibada gaarka u ahayd ayaa ahayd abwaan curiye suugaanta gole kafuulka oo aan meel u doondoonin curinta suugaanta balse daqiiqad kasta meesha uu joogo iyo mawduuca u muuqda ayuu wax ka curin jiray sida uu iigu sheegay waraysi aan la yeeshay muddo hadda 10 sano laga joogo si wanaagsan abwaan bal haddii aan ku xujeeyo iminka dabcan marar badan oo horena kolay xujooyin waad ka baxsatay oo nin baa laga sheegay kaliyahayga waa kaga baxaa karin cunay waxaan ku odhan lahaa dabcan hadeerto soo wicitaankeenni ilaa waraysigan aynu wadno suugaan ma ku cabiri kartaa ninkaas hadduu saa yidhi aniguna midaan idhi miyaad maqasho haye sabab beeba suuqyaha camiran sayladaha buuxa sarreeyiya halkay madax fadhida sawdka gabayga suugaantayda waan kaga baxay surun ciidiyoones dabcan waa maqlay gabayga hadda ka hor waa tahay aynu isu gudubno markaa tan xujadaada البالو وديغاتو بليغايو دبناو لغادي ضدادا لغو قرطا dareen meeshuu ka jiro ilaahbaa daayine difaac baan ku dalbaday doodii kale waxaan lahaa dayacnoo muuqda iyo daruur noo curata roob dabayshii khayrka iyo dugsi baad noqotay oo dalka aad joogta iyo